waxaa magaalada Ceerigaabo lagu daafuray kutub diiniya kuwaas oo ay soo bandhigeen qoraayo walaalo ah oo ay da'doodu ka yartahay 15 jir. Kutubtan diiniga oo lagu soo bandhigay masaajidka Taqwa ee magaalada Ceerigaabo ayaa waxa ay ku qoran yihiin afka Carabiga, waxaana ujeedada nuxurka ku qoran yahay isfarista xumaanta iyo isdigitaanka beenta iyo gabayo Carabi ah oo ka turjumaya wacyiga jira. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay islamarkaasina soo bandhigay kutub ay qoreen qoraayada walaalaha oo la kala yiraahdo Cabdishakuur Cilmi iyo Mukhtaar oo ah ilmo Maxamed Cabdalle Cilmi oo dhigta maxadka Ibnu Kasiir ee magaalada Ceerigaabo. ama 3 kutub oo la qoray. 3 kutub waxa weeye isjeclaysiinta runta in la sheego iyo isaga digitaanka beenta. kitaabka labaad waxa weeye nadmu safinatul amwaaj. kitaabka saddexaad waxa weeye islaaxu dhaatul bayn. ujeedada xafladdu waxa weeyaan bandhiga iyo daafurka qaar ka mid ah buugaag aan qornay kuwaas oo rasaa'il diini ah mowduucyo diini ah ku saabsan luqadda Carabiga aan ku qoran. buugtaasi waxa ugu horeeya uu noqonayaa buugga ugu horeeya buugga targhiibu sidqi wa ihdaaru kadib sidoo walaalkeen bay noo sheegay oo ku saabsan runta oo la isku booriyo iyo xumaanta la isaga digo iyo beenta la isaga digo iyo fadligeeda. kale waxa weeyaan nadmi gabay luqadda Carabiga ah oo wax ka mid ah isagana la inooga akhri doono. waxa uu noqonayaa buugga al-islaaxu dhaatil bayn in la islaaxiyo oo heshiisiinta iyo isugeynta dadka iyo sidii ay dadka isugu geyn lahaa. Mukhtaar Maxamed Cabdalle iyo isagana qoray waxa uu qoray 2014. buugtan waxa weeyaan horta ugu horeyn inaanu wanaagana ku farno xumaantana ku reebno iyo inaanu dhalinyarada ku dhiirigelino ayaa noogu muhiimsan ujeedooyinka aan ugu talagalay qoritaanka buugtan. kitaabkan aad arkaysaan nadmu safinatul amwaaj wa saaxilul mahiid in aan wax ka yiraahdo ama wax ka mid ah waxa ku qoran aan wax idinka maqashiyo. kitaabka magaciisu waxa weeyaan waa nadmi waa gabay safinatul amwaaj waa doonta mawjadaha wa saaxilul mahiid iyo xeebta badweynta. يقول راجي بالغفران الغافري عبد الشكور من بلاد الصومالي الحمد لله الذي قد جعل في أصل أمة الصومال مسلما ولازم باعتذار أولا. goobtaasi qoraayada da'da yar uga hambaliyay xubnaha isugu jira xildhibaano iyo duwayaal aqoon-yahano iyo marti sharaf kale oo badan. la yaab leh waanay tahay oo 3 nin oo isku xaafad ah oo buugaagta intan leeg soo daabacay waliba luqadaan ahayn luqad kale ah ku soo daabacay bana nagu sii dhiirigelinayeen halka ka sii wadaan. inamada dadaalay ilaahay ha ka abaal mariyo dadaalkay sameeyeen waalidkoodna ha ka abaal mariyo aakhirana kuwii taajka loo geliyo abaweenkooda Allah ka yeelo. sheekh cilmi ilaa 7 kullay intaan anigu tirada hayo sheekhaas oo miidhan bay ka soo taswiirmayeenoo waa qoys sidaas ku ahaa diinta markoodii horeba. ayagana inamadana waan u ducaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga awoodda iska leh inay kuwa halka ka sii socda ilaahay ha ka dhigo. yaab kale ee kalsoonida leh ee ay u soo bandhigayeen dareenkooda waliba buugaag ku saabsan arrimaha diinta walaw ay baraarto Carabi u badnaayeen haddana aynu jecel lahay mustaqbalka maadaama iyagoo aan 20 jirkaba gaadhin inay buugaag af Carabeed ku qoran ay qorayaan waa arrin aad u la yaab badan. Cabdi Fataax Maxamed Yuusuf, telefishinka caalamiga ee Ficil Channel, magaalada Ceerigaabo.